السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin waa walaalkiin Kudan Muse. Sida ogsoontihiin 8 March ee nagu soo fooleh dalkan Ireland waxaa loo dareeri doonaa doorasho. Waa muhiim, waa doorasho aad u muhiim ah. waxa laga bedeli doonaa dastuurka. Qodobka 41.1 ee qeexaya family ayaa la rabaa in wax laga bedelo oo wax lagu daro. Dad badan oo Irish ah wadankan dhaqankooda ku adag ama dadka diimaha haysta runtii aad bay u soo jeedaan oo waxay codeyn doonaan no. qodobka labaad oo asagana la raba in la taabto waxa laga bedelo waxa weeyaan waa article 41.2 waxa la yiraahdo care in home, sida hooyada kaleeto hooyada inay gurigeeda dhaqato, gurigeeda ay maamusho, gurigeeda ayada ka adag tahay waa waxay caado u leeyihiin dalkan Ireland. waxaa la rabaa marka in awood badan looga qaado hooyada xuquuqo badan lagu soo daro. marka waxyaalo badan baa soo hoosgalaya. hadda family kaleeto wax badan baa soo hoosgalaya. sida ogtay Europe waa isbedeshay, adduunku waa isbedelay, waxyaalo badan baa adduunku soo siyaaday. dadka marka dhaqan ku adag ee dalkan haysta ama diimaha haysta way ka soo horjeedaan runtii. anaga marka haddaan nahay dadka soo galootiga maxaa nagu gudbun wuuna saameyn doonaa sababtoo waxa anaga muslim baan nahay. diinteena waxyaalo badan oo ka soo horjeeda ayaa meelaha ka dhaca. marka maxaa laga rabaa marka waxaan laga doonayaa marka hooyo kasta ama aaba kasta ama cunug kasta ee dhalashada wadanka haysta inuu hore u soo baxo ee u codayo. haddaba sidee u codayn kartaa marka? waxaa gurigaaga lagu soo diray warqadaas aan gacanta ku hayo oo kale. waa inaad fiirisaa, waxay ku sheegaysaa goobaha aad ka codayn kartid iyo qaabka aad u codayn kartid. waxaa ku codayn kartaa ama ka codayn kartaa meelaha ku dhow sida iskuulka ilmahaaga tagaan oo kaleeto ama community centrada aad kugu dhow ayaa tagaysaa. magacaaga ayaa yaala haddii aad isdiiwaan gelisay weeyaan. waa tagaysaa, waa saxaysaa, kadibna waxaa lagu gelin doonaa qol yar ah. laba warqadood ayaa taala, midna waa green midna waa white. labadaba waxaa saaraysaa X, ha hilmaamin. dadka inta badan waxa weeye waxba isku khaldaan ama sax bay saaraan, ma ahana codkaaga yuusan beerdaroobin. haddii codkaaga uu beerdaroobo meelka ayuu tagi doonaa. haddaad codeynin oo ka siixatid codkaas qof kale ka faa'iideysan doona. muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa inuu soo codeeyo oo codkiisa ka faa'iideysto. anigoo ay weydiisid waxaan codeyn doonaa maya. ma baasan tahay. Be a voter on Friday, March 8th.